anigu caawa waxaan ka hadli doonaa qodob aanu arkayo inuu yahay qodob aad u muhiim ah qodobkaas wuxuu ka sheekeyn doonaa ama topigaas wuxuu ka sheekeyn doonaa sidee bay faa'iido ugu yeelan karayaan xoolaha nool Soomaaliland dhaqaalaheeda haddana waa maxay haddaba caqabada dul taagan inay xoolaha Soomaaliland ay ka shaqeeyaan ama xoolaha Soomaaliland ay noqdaan tiir weyn oo ballaaran oo Soomaaliland dhaqaalaheeda qaada sare u qaada intaa u guda galin topiga laga doodayo labada cisho ama laga sheekeeyay cilmi baaristayaasha aqoon-yahanadu ay ka sheekeynayeen dhinac walba laga istaagin wuxuu ahaa dhaqaalaha waa maxay dhaqaaluhu maxaad u taqaanaa maxaad ku micnayn kartaa waxaan doonayaa inaan in yaroo kooban dul istaago si fiican aad u fahantaan waa maxay dhaqaaluhu muxuu ka sheekeeyaa muxuu qabtaa marka laga hadlayo dhaqaalaha tiiri ahaan maxaa lagu dhigay maxaa lagu weeyaan dhaqaalaha marka la isku soo duubo gebigiisuba wuxuu noqonayaa sidee bay uga faa'iideysan karayaan iyadoo resource-ka dalka yaala uu kooban yahay dadkii ganacsatadii iyo dawladdii isagoo nin walba uu rabo faa'iidadiisa khaaska u ah inuu fushado dhaqaalaha lagu sheegay gebigiisu waa intaa sidee bay u suurto geli kartaa resource-ka dalka yaala inaynu ka wada faa'iideysano inagoo nin walba uu leeyahay baahi u gaar ah dawladdii ganacsatadii iyo shicibkii iyo community-ga halka degan dhaqaalaha marka laga sheekeynayo dunidu qolo walba dhinac way ula kacdaa imika waxaan idin sheegay saddexdaa qolo waa inay ka faa'iideystaan iyagoo baahiyahoodii nin walba uu soo koobayo tusaale yar baan soo qaadanayaa marka maanta aad doonayso aad tahay qof ganacsada waxaad u baahan tahay inaad wax la soo baxdo waxaad la soo baxaysa laba meelood baad ka eegaysaa waxaan la soo baxayaa faa'iido ma u leeyahay dadka iyo shicibkiina waxay ka eegayaan waxaan noloshaydii ma kaafinaya dawladdiina waxay ka eegaysaa sidee baad cashuur uga samaysaa sidee baad revenue uga samaysaa aad ku celiso shaqaalihii dadka iyo noloshii socotay ee ahayd ilaan lacagtu markay tagto waxay u tagaysaa waa shaqaalihii dawladduna waxay u shaqaynayaan waa adigiina waxaad u shaqaysaa dawladdii noloshu saasay u wareegtaa that's why inta badan loo yiraahdaa dhaqaaluhu waa wareega haddii wax ka khaldamaana waxba ma hagaagayaan maxaan u soo qaatay topiga xoolaha nool burco waxay quudinaysaa dhammaan Somaliland oo dhan waxa laga yaabaa inay caawa la yaabtaan markaan time ku dhaado burco waxay quudinaysaa Somaliland oo dhan waayo wadan kasta oo dunida ah wuxuu leeyahay resource ilaahay siiyo waxa la yiraahdaa community intiina dad qaybtiin dhaqaalaha aad barateen waad garanaysaa waxa la yiraahdaa community wadamada qaar waxay ku faanayaan Sacuudiga oo kale waxa weeyaan waa shidaalka wadanka Kenya Malaysia waxay ku faanaan waa palm oil-ka wadanka Ethiopia wuxuu ku faanayaa waxa weeyaan bunka adigu hadaba maxaad ku faanaysaa waa maxay asset-kaaga waa maxay community-ga aad leedahay waa xoolaha nool wuxuu kugu jiraa halku shidaalka ugu jiro Dubai wuxuu kugu jiraa halka Ethiopia ugu jiro bunka ay dunida uga iibgeyso waxay dunida ka iibgeyso xoolaha noolna waa wixii dunida laga iibgeeyay haddaba waxa question-ku ka taagan tahay iyadoo aan ku leeyahay Somaliland oo dhan GDP-geeda ama wax soo saarka dalka oo dhan waa inay quudisaa burco maxaa koos gareeyo burco ilaa shalay oo dhan baan dhageysanaya tobayada ka baxaya inay caqabado badan ku gadaamayeen sababo badan iyo riisano badan baa jira oo aan koow ka dhigayo iyadoo aan la fahansanayn wixii community-ga Somaliland u lahayd maxaa ka khaldan marka qodobkan ila fahantaan baad garan kartaan caqabada haysato burco iyo caqabada haysato Somaliland inta tira leeyahay Somaliland oo dhan waxa haysato caqabadeeda waa inay fahmaan gobolkan ahmiyadda uu leeyahay iyo capacity-ga uu ku fadhiyo iyo waxa dhex yaala waxaan doonayaa inaan toos u galo hadaba topic-gayga ii qornaa caawa oo ah caqabadaha hor taagan ama challenges-ka hor taagan xoolihii noolaa maxaa opportunity iyo fursado inoo banaan waxa aad looga hadlay labadii cisho shalay fadhiyay dhammaan in laga sheekeynayay caqabado laakiin solution ma arkin marka waxaan doonayaa caawa bal inagoo solution isla qaadanay inuu albaabka ka baxno caqabadaha ugu waaweyn ee haysta xoolaha wax weeyaan waxa kamid ah environment-ka deegaanka marka laga hadlayo gobolada bariga oo dhan ay hooyo u tahay burco ay hooyo u tahay waxaad arkaysaa inay abaaruhu ay xoog u saameeyaan gobolada bariga oo dhan marka laga sheekanayo hooyadood waa magaalada burco ee caasimadda oo ah gobolka Togdheer abaarahaas inta badan sababa keena weyn ognahay waa climate change-kii adduunka oo dhan baa isbedelay cimiladii adduunka isbedeshay
cimilada adduunku inay isbedesho waa wax natural oo waxa lagala sameeyay dunida lagala sameeyay laakiin maxaa sababi karaya in environmentkii ama deegaankii uu noqdo mid xaaluf ah oo guuray waa caqabada ugu weyn ee haysata in xoolihii nool ay baaba'aan waxa guuray nabaad guur baa dhacay nabaad guur ka dhacay wuxuu saameeyay xoolihii noolaa laba midba uu saameeyay in abaaraha soo noqnoqonaya gaashaan aan jirin wax lagaga gaashaamo ama wax lagaga hortaga aanay jirin abaarihii maxay saameyn ku yeesheen in roobabka da'aya ay ku dhaafaan dhammaan roobka da'aya iyo dooxyadan iyo biyahan aan la qabanaynin waxay sii qaataan wax halaali iyo wixii macdan oo dhulku lahaa oo dhan laba caqabad adigoo biyihii xidhanay biyihii ku dhaafeen haddana uu nabaad guur kugu sameeyo ka xaaqo wax halaali iyo wixii macdantaan iyada oo environmentka caqabada labaad ee taagan waxa weeyaan iyada oo aan loogu talagelin in maadaama uu abaarihii markay yimaadaan dhirtii baaba'ayso xal iyo solution ah in dhir beeris la sameeyo garanwaaga ku badan dhulka haddaad inaad aragteen in kale mooyaan waliba marka baadiyaha u baxdaan garanwaaguna san anugu ka maqaalahayo waa nabaad guurku qayb uu ka yahay ma jirto dhir beeris ama qorshe dhir beeris marka caqabadaas waxay keentay in nabaad guur yimaado oo dhulkii nabaad guur uu ku dhaco abaaraha saameynta weyn ku yeeshay gobolada bariga ay burco hooyo tahayna wuxuu saameeyay inay xoolihii noola ay yaraadaan oo percentage-ka intii soo bixi jirtay ay 60% ama 70 ay hoos u dhacday inkastoo aan reference sax oo maanta wasaaradda deegaanka ama wasaaradda xooluhu ay qortay meel yaala aanan arag laakiin waxa iila muuqata markaan eegay burco iyo hareeraheeda iyo xaaladda taagan inay wax badan ay saameyn ku yeesheen abaaraha maxaa keeni waayay in xoolaha la maal gashto oo shirkado waaweyn loo sameeyo maxaa keeni waayay in xoolaha meel inta lagu hayo la quudiyo wax la siiyo dabeetana suuqa laga iibiyo ilaa waaniga yiri waa community-ga dhammaan dalku lahaay taasuna waxa weeyaan waxaynu fahminba oo maskaxdeennaba ku jirinba sidii looga faa'iideysan lahaa xoolaha ee loo ilaalin lahaa ee looga sameyn lahaa ganacsi ee looga dhigi lahaa innovation ama fikirro ganacsi looga dhex samaysan lahaa waa caqabada kale waxa kale iyaduna caqabad ka haysataa infrastructure iyo dhismayaasha in loo dhiso hangaro waaweyn oo laga ganacsado oo laga shaqeeyo meesha way ka maqan tahay kaliya waxaynu sugnaa xoolaha baadiyaha aynu ka soo qaadanayno xoolaha baadiyaha aynu ka soo qaadanayno wixii naga soo gala baynu eegnaa waxa kale iyaduna jirto caqabad ku ah inay dadku ka ganacsadaan oo business ka sameeyaan waxa keenaya financial accessibility maba jiraba shirkado ama companiyo ama bangi maal galiyo xoolaha nool dhammaan shirkadaha wadanka ku yaala waa surface baananka wadanka ku yaala waxay maal galiyaan wixii surface ama gaari ha noqoto ama guri ha noqoto waa luxury laakiin ma jiro bangi kaliya oo ka shaqeeya inuu maal galiyo xoolaha iyo beeraha anoo maan arag intii aan joogay Somaliland ama research ka sameeyay taas waxay noqotay caqabada ugu weyn ee ah inay dhamaadaan community iyo wixii dalku u lahaa caqabadaha aan dul istaagay oo dhan faa'iido waa loo bedeli karaa opportunity waan ka dhigan karnaa inuu ka faa'iideeyo laakiin waa marka maxay la fahmo dhaqaalihi baan imika sharaxay dhaqaalaha marka aan leeyahay waa resource dhaqaalaha lagu sheegaa ma aha in la sameeyo 4 shirkadood iyo 5 shirkadood oo ka shaqeeya alaabta sidii loo soo dejiyo iyo sidii surface oo guri iyo loo sameeyo gawaari loo iibsado marka laga sheekeynayo dhaqaale laga sheekeynayo waa resource in laga faa'iideysto resource-ka dalka yaalana waa xoolihii noolaa ma jiro ilaa hadda ganacsade ku dhiiraday neemi intoodaba ama shirkado waaweyn ha sameeyaan ama bangiyo waaweyn ha sameeyaan shirkad kaliya oo ku dhiiraday ama ganacsade kaliya oo ku dhiiraday inuu samaysto ganacsiga xoolaha oo xoolihii dib u soo nooleeyo imika waxaan soo sheegay wadan walba inuu community leeyahay wadanka haba fogaanba wadanka Ethiopia Soomaaliya bunku wuxuu yahay community-goodii weeyaan oo waxay maanta dunida ka iibgeeyaan ee dhaqaalahooda sare u qaado Soomaaliya de shirkadaha ka shaqeeya shirkadaha international iyo shirkadaha local way ka shaqeeyaan lacagtay ka soo saaraan tax baa laga qaadaa lacagta tax-ka laga qaadayana waxay automatically dib ugu noqotaa GDP-ga dalka markay dib ugu soo noqotana waxay dib ugu soo noqotaa shaqaalaha lacagtooda shaqaaluhu wuxuu sameeyaa inuu noloshii oo dhan ku furfuranto economiga iyo dhaqaaluhu waa circulation waa inuu waxan wareegaa hal meel waa inuu taagnaa laakiin inaga maxay noqotay dhaqaalihiina iyo dhan meel buu taagan yahay meel bayna ku xidhannahay halkaas sareyna ku xidhannahay halkaas sareyna waxa weeyaan inuu bangiga yimaado laakiin bangigii markuu yimaado muxuu qabanayaa waa maxay shaqadiisu inuu bixiyo contract iyo gawaari iyo wax lagu sameeynayo
lagama fikirin in la soo nooleeyo oo laga fikiro community dalka in dib loo nooleeyo waa caqabada koobaad ee aan u arkayo in loo bedeli karayo opportunity in la helo dad ganacsato ah oo fikir la yimaada oo nooleeyo xoolihii nooleeya oo marka dunida ka soo hela oo iib geeya caqabadaha ugu waaweyn ee dunidu wajihi doonto sanadada soo socda waa climate change laakiin inagu maxay sameyn karnaa inaga hay'adaha inooga shaqeeya waxaad arkaysaa climate change-keena cidda ka shaqeynaysa waa hay'ad anugu maan arag shirkad local ah oo intay ka shaqeyso dhir beeraysa oo ka faa'iideysanayso opportunity ka sameynaysa ma jirto ama bangi ka faa'iideysanaya ma jiro waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo biyo xidhana in laga shaqeeyo oo maadaama Burco tahay centerkii oo dadweynaha tagay bari waxay leedahay inaad aragteen meel weyn oo biyuhu maraan waxay ka mid tahay oo dadweyne meelaha ugu cajiibsan marka laga hadlayo xoolaha iyo beeraha iyo magaalooyinka kalaba haddana saasay tahay dhulkii uu xagaafay waxa la garan laayay in la sameeyo in la qabto biyaha la qabsado baa la garan laayay because why dadkii caqabadu waxa weeyaan hay'adihii baa waxay bareen in iyagu ay fiir gareeyaan oo haddii ceel yar la qodayo haddii biyo yar la xirayo waa loo sheegaya markaad waxaad bislaatay markaad gaadho inaad fahantay inay waxan caqabad hayso a solution ka samaysanayso markaasaad bislaatay laakiin wali ma bislaan marka waa in environmentka loo fahmaa caqabadaha environmentka laga faa'iideysan karo opportunity loo bedelan karaya waa in dhirtii la beera oo dhir beeristani ay noqotaa wax ma oran karayo anigu dadkeena aan finance ama dhalinyarta aan lacagta helayn baa ka shaqeynaysa mali laakiin waxaan leeyahay dadka ganacsatada ah ee lacagta haysta ama dal ha joogaan ama dibad ha joogaan inay maalgelin ku sameeyaan shirkado ka shaqeeya deegaanka oo opportunity oo laga faa'iidi karayo si xoolihii u noolaan karayaan waa in la sameeyaa production waa in la sameeyaa xoolahan laga faa'iideystaa oo shirkado badan in la maalgeliyaa oo internationally loo marketing gareeyaa dunida laga marketing gareeyaa ma yaqaanaan adduunka ma jirto wadan kaliya oo aynu ka marketing gareyno oo aynu u sheegno xoolaha nool iyo sida uu wadankeena ku yahay iyo inaynu nahay dad xoolaha nool khubaro ku ah dee ugama sheekayno marka waa inay jirtaa fikir ah in dunidii kale laga iibgeyn karayo oo dunidii kale loo sheegi karayo productionka ama sidii looga faa'iideysan lahaa xoolaha looga faa'iideysan lahaa infrastructure waa in loo sameeyo waa in la nadiifiyo xoolahan lagu sii deynayo baadiyaha inta lagu sii daayo qofkii baadiyaha joogay lagu oranayo isagu afarta xabeen ka iibsanna lagu oranayo waxa ka fiicnaan lahayd inta laga iibsado iyaga in shirkada sameysmaan dabadeetna shirkadahaas ay ka dhaliyaan ganacsi dabadeetna ganacsiga loo bedelo in laga sii jajabiyo dabadeetna intaas oo kun oo shaqo abuur ah ay ku sameysanto fikrada noocaasna waxa laga rabaa wasaaradii ay khuseysay iyo sidoo kale bangiyadii dalka ka shaqeynayay haddaanay ka shaqaysanaynin dadka localkii waa in laga fikiraa in adduunyada kale laga iibgeeyo dooyay baa inoogu dhow relationship wanaagsan baynu leenahay waa laga marketing gareyn karaa waxa ku yaala stock marketkii ugu weynaa bariga dhexe uu ka mid yahay baa ku yaala oo maanta assetka aad leedahay ama waxaad leedahay waxa lagu iibgeeyaa waa stock marketyada adduunyada dee waa laga iibgeyn karaa xoolaheena haddii laga shaqeeyo laakiin waa in laga shaqeeyaa dee maaha neefka baadiyaha joogay aan wanaagsanayn aan la hagaajin maaha waa in neefkii laga shaqeeyaa oo loo bedelaa ganacsi laga dhigaa finance-kii ama lacagaha shirkadaha bixinayay ee maalgelinta sameynayay waa inay ka faa'iideystaan waa inay u arkaan opportunity ah in laga faa'iideysto oo bangiyadu haddaanay ka shaqeyn karin waa run lacag badan baa ku baxaysa investmentka laakiin waa in la helaa baanan investment oo dalka jooga oo ka shaqeynaya haddii kalena waa inay jiraan initiative kale iyo fikro kale oo ay dowladdu isticmaalayso si ay u maalgeliso dadka ka ganacsanaya ee dhalinyarta ah waxyaabaha kale ee aan intaan gobolka joogay aan kala sheekaystay dhalinyarta waxaa ka mid ah in shaqo abuur la'aan darteeda ay intii ugu badnayd dadkii dhalinyarta ka baxeen gobolka magaalada Burco oo ay tageen Hargeysa si opportunity looga sameeyo de Hargeysa opportunity maba taalaba waa surface shirkadaha ka shaqeeya Hargeysa jooga dhammaantood surface weeyaan waxay qabtaan alaab la soo dejiyo laga soo dejiyo dekadii Berbera dabadeetna la iib geenayo laakiin halkan bay ahayd in laga dhaliyo ay ka fikiraan inta xoogga la gelinayo magaalo kale in halkan laga fikiro inta wax la isku darsado oo share la sameeyo in company-ga xoolaha laga sameeyo Burco laga sameeyo haddii aanay dawladdu waxba ku darsanaynin dadku way sameyn karayaan si xorana waxaan u maleynayaa inay suuq ugu raadsan karayaan marka arinta la leeyahay dadkii magaaladu iyagoo aqoontii hayabay ka baxeen anigu waxaan ku boorin lahaa inay dadku ka fikiraan inay xoolaha nool ee halkan la maal gashto
ase dhalinyaro ahaan Maan-Maal waan ku bogaadinayaa inay maanta barnaamijka ka shaqeeyeen inay dad isu keeneen inayna soo marti qaadeen inaan nimadna oo idinla hadalno waa fikir wanaagsan waa in sidaas si lamida looga shaqeeyaa oo la soo jiitaa dadka kale gobolada kala jooga inay halkan tahay halkii fiid gareynaysa Soomaaliland oo markaa la sameeyaa fikiro iyo initiative la yimaada dadka qurba joogta ah ee deegaanka u dhashay waa inay maalgelinta qayb ka noqdaan waliba qayb ballaaran ay ka noqdaan taana waan ku dhiirigelinayaa waxa kale oo iyadana muhiim oo la rabaa doodeedii iyo ka hadalkeedii in la keeno in cashuurta magaalada Burco ee xoolaha halkan lagu cashuuro waa dood xalaal mar baad xaq leedahay ase muwaadin waxaad xaq leedahay markaad baahida ku haysata aad ka falcelinayso ee doonayso baahidaada inaad opportunity lagugu bedelo xaq baad leedahay inaad wax caydeen cid aflagaadayso xaq ma lihi laakiin waxaad xaq u leedahay waxa ku taabanaya inaad ka hadasho marka tan oo kale marka laga hadlayo cashuurihi ama la oranayo customkii Burco berbere u wareegay waa dood xalaala waa inay ka hadlaan dadka gobolka u dhashay because waa baahi taabanaysa taasna waxaan oran lahaa doodaha noocaas oo kaleeta iyo platformyada noocaas oo kaleetana waa inaad ka dhalisaan doodo ood ka hadashaan ood muuqataan taana waan ku boorinayaa Somaliland waxa kaliya ay resource ay leedahay ay maanta dunidana ka iibgeynaysaa runtana waa xoolaha noolna halka ay yaalaan waa magaaladan oo caasimo hooy u ah ama aabo u noqonayso togdheero sayladii ugu weyneedna ay ku taalaa at the same time iyada laga rabaa inay marti geliso dhammaan eriyooyinka kale ee ay ka imanayaan xoolaha nool oo ay u diyaar garoobaan fikrada noocaasana waa inay maskaxdiina ku jirtaan